نبضنا الله عادنا الله دلك علاد هجلين هكنا ردين سودا ودات كات كحردي حق درهدا سودا والدين توهيل لي سودا دتك وادد إسلامه وادد دين كل شيء كيد قال يقولون كيد داني مينو قال يقولون كيد داني مينو قال يقولون كيد داني مينو لا إله إلا الله محمد رسول الله وحويه لنا أيام الديار وحكروا عضاتي إن رجس كوريرا ورجي ووينايا دلك وتريني سياسيين تها وقار حلال فربنا هيان إن سيب مدايسن أي نكا يقول دقيين ويسمع لهم قيس معها قيس بانك يكون دقن هديت هاي كسورياشا هديت هاي كيسو قبتي ترياها هديت هاي كوا كهضليا دلك كو حكومي هديت المدحوينه ودنك ugu sareeyo soo ka hadlay oo soo xidho u xidhayahay qoys ba arrinka ninka bintidku ah cid kale Soomaaliland oo yar sameeyana ka saarina ma jirto reerkaasu waan ognahay in dambiga u haystaan aan saamaxan oran Cabdimalik Sheekh Muuse Coldoon waxa uu ahaa mid muddooyinka ugu dambeysay iyo sidoo kale 24 saac la soo dhaafay mid baraha bulshada hadalhayntiisu ay ka taagneed tan iyo intii qoom uu ka baxay baraha bulshada waxa uu ahaa Cabdimalik mid bedelay sidoo kale cadaalad lagu raadinayo comment kasta oo ka socda baraha bulshada كومنتيada guud ahaan Facebook iyo sidoo kale aaladaha kale ee bulshada ay ku wada kulanto ayaa ahaa Cabdimalik Muuse Coldoon Nufriye Cabdimalik cadaalad ayuu rabaa erayada halkudhigyada ay adeegsanayeen dad iyagu kala duwan ee komentiyada ku daabacay baraha bulshada kala duwan sidoo kale muuqaalo tiro badan oo cadaalad lagu raadinayo Cabdimalik ehelada Cabdimalik oo kacdoon la yaab la sameeyay sidoo kalena madaxweyne Biixi si gaar ah ula hadlay si walba ha noqotay intaan muuqaalka dhameystiran idin soo gudbin halkani waa kanaalka ansixinta wararka haddii aad ku cusub tahay صابير وكمين نقب قرالك كنا قف سيدة شوكتدا وجحرن كنال كان سحن توررك سدوا كلام مقال كني لايكراسي أنو تاجرنا عبدالمالك وعد كأنه نميل ديرو قادو مع السديدين هلدا Cabdimalik Muuse Coldoon waxay ahaayeen kuwa muddooyinka ugu dambeysay si weyn u kacsan isla markaana si la yaab leh uga hadla xariga Cabdimalik Muuse Coldoon oo xidhan muddo ka badan 172 casho si walba ha noqotay Cabdimalik ayaa maxkamadda ku dhaariyay kitaabka Alle sidoo kalena ku xukumay kitaabka Ilaahay in isaga xukunkiisa lagu qaado Cabdimalik tan iyo intii maxkamadda uu ku adkeeyay go'aanka waxay noqotay maxkamadda mid go'aankiisa muddo badan ay baaristiisu qaadato sidoo kale maxkamaddu ay haatan wax go'aan ka soo saari laaday hadaba bulshooyinka Soomaaliyeed meel kasto ay joogaan waxay ahaayeen kuwa 24 saac u dambeeyay kaadoona ka dhex qarxiya baraha bulshada kuwaasi oo iyagu comment kasto la riixo ku qoriyay Coldoon cadaalad ayuu u baahan yahay iyo sidoo kale erayo kale oo la micnaa oo ay adeegsanayeen halkudhigyada inta badan ay adeegsanayeen ayaa ahaa Free Coldoon cadaalad ayuu rabaa sidoo kale muuqaalo kasto la soo gudbiyo baraha bulshada lagu soo gudbiyo waxay ahaayeen kuwa faaladiisa inta badan ka dhiibanayeen sawirro Coldoon ay ku xardhan yihiin erayo ay ka kooban yihiin Coldoon cadaalad ayuu rabaa Free Coldoon iyo sidoo kale erayo kale ehelada Coldoon oo iyaguna baaqiyo kala duwan soo saarayay habaryaraha Coldoon oo si la yaab leh ula hadlay madaxweyne Biixi ee dooyinkiisa iyo waliba adeeradii oo fariimo la yaab la diraya ila daawo muuqaalkan ilaa dhamaadka si aad u xogaato xog tiro badan oo ku saabsan mudaharaadyo kala duwan oo la dhigay isla markaana cadaalad lagu raadinayo Coldoon daawasho wanaagsan muuqaaladan ila daawada أنا أرتي واحد المجاين بدن باركني توم جو إلهي ودن باركسين مو صبيحو كوردي أسلم باليوري لحلة دنتي مسلين أسلم هو اللحلة كراسة أرتي مركو يا برعو هذا اللحلة كراسة نكاين أرسم فلاها يوم تاني عاوني تتكبان عاوني أنا أرتوي بيت مايو تتكي إلهي ودن عاوني تتكون مقنع أرتي أنا الكبير كواسة أنا الكبير كواسة مصبيحو كوردي المقوم هرجسوي شو أنا ربع قول شيء مصبيحو نار برعوي شو أصل حلقنا على مدينة نار وتبقى البنك وين نار إنا رجل مجاي شراء إلا بعتك السنوات أنا كسكاد لي وضع بينك سوق هذا سنة مسبحه كورتي أنا بقول هذا الكي وقول كاو كوي من يعني هنا أنا بأفكر مرمري أنا ما جت تنتم مرمريو أسلم بالي الوو ذا اللحلة أفكر مرمرنا أنا ولا نياتن دون مسبحه كورتي كوريو خمس بقول هلا إنا أرنيك إسلام كاي لا هي أبو رتيار إنا رجل مجاي كوك هذا نار هذا إنا العدالة سمع تكلم كل شيء العدالة هنا وعويا هبليه مش دقني إنا رسالة لهاي ولا أركني سيد لهاين إنا أفكر سيد لهاين وأركني وركنا على مدينة وصل حالنا
markaa xukuumataan cabdimaali ee go-aankiina ka gaadhay annana kaayagu meel buu yaallaa ku talagala ku seexda saa doonaysaa nowgala saaka waxaan u soo kacay cabdimaalig arrintiisa waxaan ugu soo kacay dembi laguma haysto qabiil baa xidhay waa la maqlayaa waa raggaa la tirinaya waxaanu sugaynaa furaha sharka meel baanu iskaga rigna laakiin waxaan sugaynaa maanta oo soo saarayna xukunka cabdimaalig baanu la sugay meeshaannu dhignay inaannu ka soo saarno iyo inaannu in kale kaasaannu la sugaynaa waxaanna leenahay somalilan waa maqlaysaa oo arkaysaa annagu baryana mayno maanta qabiilkaa dee xidhay ninka xaqdarrada ku xidhay somalilan waxaan leenahay way aragtaa arrinka cabdimaalig somalilan iyo islaamkuba aad iyo aad buu uga dheragsan yahay waa arrin loogyahay weeye annana haddaan nahay reerka uu ka dhashay uu ka soo jeedo horena waanu uga hadalnay muddona waanu ka aamusnay mana aanaan ilaawine bal waxaanu eegaynay dadka inta aan wax ogaynay inay ogaadaan arrinka cabdimaalig sida uu yahay iyo nooca uu yahay kiina waa la ogaadayoo maanta waxay la tahay somalilan way ka dheregsan tahay arrinta cabdimaalig wuxuu sheegay iskuulka abaarso wuxuu sheegay arrin xaqa oo ka jira oo baadareedaaso ay diinta gaalada ay ku faafinayso iskuulkii baa layidhi maxaad u sheegaysa al-jasiira ka hadlaysay xalayto arrinkaa waa wax la wada ogyaho waadaxa wey cabdimaaligtuu ku xidhay horta waa islaamnimaa loo haystaa wax kale looma haysto midda labaadee loo haystaana waa reernimaa loo haystaa waxaanu leenahay haddaanu nahay beesha cabdimaalig ka soo jeeday waxaan u sheegaynaa reer somalilan oo naga go-an oo gun naga ah war ninkaa xaqdarrada loo haysto ee reerku u heshiiyey reer baa u heshiiyey sida hore odayaasha usoo sheegeen waa arrin reer adeer kuwii madheero jabsan jiray way joogaan kama dhammaan dhulka cid aanu baryaynaa maanta ma jirto wuu naga soo dhammaaday arrinkaas laakiin haddii mar odayaashii arkeen somalilan aragtay sharcigiina aad aragtaan waxa weeye yaanoo cabdimaalig horaan uga samirna iminkana waxa weeye say doonayaan ka yeeray annaguna waxa weeye taayadu waa meel somalilan wali wada joognaa waxa weeye 150 kilomitir baan joognaa meel kuma kala maqan maanta odhan mayno ha la sii daayo iyo ha la saamaxo midna odhan mayno waxa ku soo socdana waa ognahay waxa uu soo marayna waanu ognahay waxaanu leenahay oo keliya haddii la helayo ninkaa cadaalad ha la mariyo ilaa guddoomiyaha maxkamadda sare ilaa garsooraha kiiskiisa haya iyo garsoorayaasha kale ee maxkamadda qaranka iyo looyarada waxaanu ka codsanaynaa ninkaa in cadaalad la mariyo laakiin odhan mayno saanaxa dhammaan waxaan salaamayaa somalilan meelay joogtaba waxaanu somalilan iyo islaamkaba u sheegaynaa arrintaa laga soo hadlay cabdimaalig muuse coldoon oo noqotay boob aan bogsanayn waxaad moodaa marka ugu horraysa inankan in laga baadhayo macdan oo calooshiisa gashay anugu ma garanno waxa laga baadhayo ee laga doondoonayo in badan baanu dul qaadananay waanu arkaynay xumaanta iyo foolxumada meeshaa ka socota كومد قريبنا حريقي وديباتيو الله جيل البادنا الله جيل البادنا علدونك مسكينكا محالو حكوميا عبسيلو قريديا قرني تاقي قميستي إنكيريس لورنجيراي موسو مياتهاي موسو مياتهاي واللي واقسيا عبدون وحو حريهاي مقالكي يا رابا
yartii maatida xoolahood marse muusoo xagaad qaban yartii maatida xoolahood marse muusoo xagaad qaban muusoo xagaad qaban maqonkii halaagmaad muusow ka noosho qarnigaagii wuu tagay qarnigaagii wuu tagay maqonkii halaagmaad muusow ka noosho qarnigaagii wuu tagay qarnigaagii wuu tagay ilay cawl qalbi dhagax nafsigii markii uu soo wareegay isagii baa ku dhacay godkii ilay baa godkii ku dhacay uu qalbi dhagax ku riday intuu nafsigii soo wareegay ku riday ma laga yaabo inaad ku dhacdo goobta gaalada aad la doonayso iyo godkaad ku riday adaan waxba ku leeyin inaad ku dhacdo ma laga yaabaa nafsigu ma baaqdo ma laga yaabaa sidii ilay inay kugu dhacdo maalin walba u dulqaadan mayno in aada xafiiskiisa ku la taxaabo mudane madaxweyne u dulqaadan mayno horaan u dulqaadanay dulqaadkii wuu naga dhammaaday wixii dhaca shaqa kuma lihin madaxweyne haddaad si degdega u soo dayn wada dulqaadkii waa naga dhammaaday